Soomaalida ku dhaqan wadankan South Africa ayaa waxaa la soo dirsay walaac aad u xoogan iyadoo boqolaal muwaadiniin Soomaaliyeed ay ka soo barakaceen goobihii ay ku lahaayeen ganacsiga kadib markii ay kooxo madow South Africa ay ku soo qaadeen weerar xoogan oo lagu boobayay hantida dadkan Soomaalida ah. Waa maalintii labaad inta ay socdaan rabshadahan oo ay ku soo barakaceen dadkan Soomaalida ah oo haatan hoy la'aan ku haysato daafaha magaalada Cape Town. Mar aan gaaray goob ka mid ah tuulooyinkii uu dhibkaasi ka dhacay ayaa waxaan arkayay dukaaman la gubay ka hor inta aan la boobin. Arrintaas ayaa waxa ay sababtay in dad badan ay ka soo barakacaan goobahooda ganacsiga ayagoo haatan aad ugu walaacsan sida arrinta ay noqon doonto haddii aysan dhammaan rabshadaha haatan taagan. Sidoo kale ilaa iyo hadda waxaa socdo daadgureynta alaabtii tiilay qaar ka mid ah dukaamada aan la boobin iyadoo ay jirto cabsiyo badan oo isa soo taraya. Waa kuwan qaar ka mid ah dadkii uu dhibkaasi soo gaaray iyaga oo ka cabanaya dhibka ku haysta wadankan South Africa. Dhibaatooyinka wadanka South Africa kala kulana waa dhibaatooyin badan oo inta lagu soo koobi karin. Mararka qaarkood waxaan la kulannaa nimanka madowga oo jooga wadankan inay dilaan hantideena boobaan. Hadda dukaan uu yiri Frimbi waa la kala booba aniga oo dayahayo shacab gaaray 200 qofood dawladda oo joogto. Marka dawladda South Africa waxaan ka codsanaynaa dhibaatooyinka lagu hayo Soomaalida hadana qaasatan waxaana dadka ugu jarjarxan maanta South Africa inay dawladdu wax ka qabato intaasan ka codsanaynaa dawladda South Africa maadaama aanana dad qaxootiya oo wadankan in badan joogay waxaan ka codsanaynaa dawladda South Africa in ammaanka Soomaalida si fiican ugu shaqeyso ammaankeena ka shaqeyso xamar sharan waxa ugu soo tagnay ammaan darre ka dirta awgeed maana dalkeena hadduu aan ammaan yahay South Africa ma iman waxaan ku soconaa walaaleen soo socdo South Africa uu soo socdo waxaan ku talinaynaa annaga bayna ka naqla taagan inay iska joogaan Soomaalida joogaan wadankan dhibka ka batay xirig badan la kulmaa qaajal la kulmaa marka walaaleen soo socday inay iska joogaan mahooda meel South Africa nabadgelyo roon in ay raadsadaan ee South Africa iman dil joogta waa jiriya cidina wax kama qabato dhibaato boob iyo kacdoon waa jiriya cidina wax kama qabato sidaa waxaan ugu tahay dhibaato weyn oo maaragtay annaga soo gaartay dawladda South Africa wax war oo hadda ka bixisay arrintaas oo maxuu ahaa dadka Soomaaliyeed wax tiraya oo noo muuqdaan ma jiraan marka anagu dad saas dhibaatadaas ku noolaanahay adduunyada waa u sheegaynaa inay ogaato waxay nagala qaban karto dhibaatadaas waa u sheegaynaa hadda meeshaan taagannahay waa meel dadkii isugu soo baxay la soo barakiciyay waxay haystaan laga soo dhacay hoy ma haystaan meel ku noolaadaan ma haystaan waxay haystaan waa laga qaatay dad la dilo waa jiraa dad qaawacyaha isbitaalada ku jira waa jiraan dadka kale naftoor ayay maaragtay ku soo baxsadeen sidii ilaahay halkaanay ay si darxuma isaga joogaan adduunyada waa arkaysaa dawladda South Africa waa arkaysaa rabshadahan qaxootina ceebka ay haatan taagan ma ahan mid ku kooban oo kaliya dadka Soomaalida balse waa mid ay la wadaagaan dhammaan dadka qaxootiga ee ku dhaqan wadankan South Africa. Cabdikariim Mursal Farax TV-ga Universal Cape Town.